يعني طبعا ظروفها دلكينا كجرا دقاله xumo dalkan waa ka jira la isku hayo laakiin xaaladeenna hoos u dhacday oo baahidiya badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri ah waa jira dalkeena dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri jira taas marka dhinaca kale dhaqaalaha marka si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa la loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dawladaha boqolkiiba 50 in ka badan u dhaqaaleena kor u kacay ama boqolkiiba 100 in ku dhow aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow uu joogi jiray wuuna sii socdaa buga standardka dhaqaalaha lagu cabiro caalamka lagu cabiro waa suuqa marka dhex gashidood fiirisidna suuqa waa ka inta magaalada intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah magaalada meeqa dhisma ka socota mashaariic dhismo oo waaweyn magaalada Muqdisho hadaan midaal ka soo qaado meeqa ka socota mashruuc kasto dhisma oo socdaahay soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shahaadi jiray kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayay kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo propagandada meel inuu fadhiisto nin ama nin caaybasada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waay khayr Allah idisiyo waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qayb gala magaalada Muqdisho bas maaha magaalo kasta fiiri baydhaba dhismaha ka socdo baraawo dhismaha ka socdo kismaayo wadooyin ijidada iyo dhismaha ka socdo baydhaba sidoo kale wadooyin baraawo ka socdaan dhuusa mareebay ka socdaan joor meel walba oo dalka kamida mashaariic ka socdo aan shalay ma jirin mashaariicdaas wadooyinkaas ma dhismaynin daarahaas iyo dhulkaas iyo real estate-ka maanta laga hadlaayo ma dhismaynin ma jirin nin walba guri yaro finti 120 lagu dhufto 15 yaro afar qol oo ka dhisanaya markii dhismo la dhisay jiray maantana meeqa dabaqa dhismayso 20 meeyad guri aad dabaqa dhismayo apartments 90 iyo jarjar apartment oo isku xiran ayaa dhismaya dad Soomaaliyeed ka shaqeeyo ka xamaash ganacsato Soomaaliyeed ka shaqeeyay wax walba magaalooyinkaas banaanka jira dawlad goboleedyada dhan sidaas ah horumarku uga socda oo wadooyin aad dhismayo oo maxaan ku raadayay dhul dad Soomaaliyeed ka shaqeynaya siyaasadda politics-ka lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqeysanin ama sida qaab darrada lagu helo ama shabaab laga helo ama xatooyo xoolo dadweynaha lagu helo waayo waxa la waayo inta dhiman waa la sii waayna kuwaas hadii la yiraahdo in shabaab u shaqeeyna shabaab ku noolaan maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaan maayo waa daba soconaa waana ka celinaynaa in muxuu ahay hantida ummadda inuu dhaco oo cuno daayirada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdulillah dalkeenu maanta meeshii aan rabnay ma joogo laakiin meeshii shalay meel ka fiican u jooga sanadihii hore ee la soo dhaafay 2010 iyo wixii ka sii dambeeyay mar walba marka ka dambeysay waa sii kacay dalkeenu waa sii soconay waa dhaqaaluhu waa sii horumaray Soomaaliya maanta waxay joogtaa meel la soo aamino oo dad badan ay kansadaan maalgashi ay ugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed waxa u dhawaan dawladdu waxay soo cilaami doontaa mashaariic waaweyn oo maalgashi ah oo waaweyn oo aan ahayn daar yar oo la dhisay iyo wada yar oo la sameeyay ka waaweyn waxaas waxay tilmaam u yihiin kalsooni caalamka uu ku soo kalsoonaanay Soomaaliya horay ayaan u sheegay caalamka wixii aan ku lahayn ama aan ka rabnay ama aan xuquuq ahaan u waa ka helayna dadka Soomaaliyeed waxa annaga aan isku leenahay aan iska helno oo annagu aan is aamino oo annagu aan isku kalsoonaano oo annagu aan dawladnimada ku kalsoonaano yaana dawladnimada ka baqin